munaasabad lagu xusayay sano guuradii ka soo wareegatay aasaaska Akadeemiye-Goboleedka AfSoomaaliga ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Cabdicasiis Riyali ayaa warkaasi inoo haya. munaasabadan oo mid ballaaran isla markaana lagu maamuusayay sano guuradii ka soo wareegatay Akadeemiye-Goboleedka AfSoomaaliga ayaa maanta lagu qabtay gudaha magaalada Muqdisho. waxaa ka soo qayb galay madax ka socotay labada gole siyaasiyiin aqoon-yahan waxgarad iyo qaybaha bulshada oo qaarkood ay hayeen qalimaal. gudoomiyaha Akadeemiye-Goboleedka AfSoomaaliga Maxamed Daahir Afrax ayaa ugu horeyn munaasabada ka hadlay. madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo asaguna sidaad ogtihiin har iyo habeen u heelan ilaalinta iyo horumarinta ummadan afkeeda iyo dhaqankeeda iyo qoraalka iyo aqoon faafinta si gaar ahna aabbo ka ahaa sida filimka aad ku arkayseen asaaskii akadeemiyadan. waxaan kaloo mahadcelinaynaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo inkastoo weli wax badan laga sugayo haddana dadaal sameeyey muddadii uu joogay oo ahaa mas-uulkii ugu horreeyey oo xukuumadda Soomaaliyeed oo iska xil saaray taageeridda akadeemiyadan iyo wixii ay ku shaqeynayaan siiba sidii loo heli lahaa xarun ay ku shaqeyso. xildhibaanad Sahra Cumar Maalin ayaa ku dheeraatay muhiimadda akadeemiyada ummadda Soomaaliyeed ay u leedahay iyo waxqabadkeeda muddadii ay jirtay. sano kasta xuskaas in annaga iskayn lacagta inta soo ururino aan dadku wacno abdo markaatiga dadka daba markaatiga marka annaga ka maseexanin hawshaas aan u soo wadnay waxa u badan oo muhiimadda ahayd waxay ahayd arrimihii Jabuutina waa ka qayb gali jirnay dhaqaalaheena uga qayb gali jirnay ma jeebkeena ha noqoto ama hay'adda si aan uga farsameyn ha noqoto waxa intii la fadhiyay Siciid Saalax waxaan u maleynaa ifti waa maqasheen aasaasi ifti waay haday afrax waa ka tagay ergaas ifti waxay ahayd wasaaradda waxbarashada waxay lahayd wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta arrinta barbaarinta aad ay u culus tahay hadda maanta waa weydiye koor u qabi jiray dawladda kacaanka awood iyo xoog ay lahayd wax walba la fulinayo waxa lagu fulin karaa xooga oo munaasabka ah oo loo baahan yahay asaasay ku hirgashay oo kacaanka oo ku hirgeliyay. gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ugu dambeyntiina ka hadlay muhiimadda akadeemiyada ay u leedahay afka Soomaaliga iyo dhaqanka ummadda Soomaaliyeed. oo loo nisbeeyo inuu yahay beel Soomaaliyeed kamida inay leedahay ayna lahayn ay yahay erey af Soomaali ah oo wax kolka ka yaabtuna ku dhawaaqayso meel walbana lagaga dhawaaqo meelo badan iyo dameerka xoolahaas oo iyagana dad gaar loo saaro oo aan ahayn Soomaali oo dhan inay leedahay gaadiidka yahay intaa kolkaan idhaahdo Afrax waxaan kaaga mahadcelinayaa dadaalka badan ee aad haysid oo ah af Soomaaligani inuu geeska Afrika guud ahaantii waliba hadda waxaan filayaa tartan luqadeed oo hadda afka Oromadu wuxuu noqonayaa geeskan Afrika afafka ku tartami doono ka mid noqonaya. muddadii 5 sano Akadeemiye-Goboleedka AfSoomaaliga ee jirtay ayay qabatay wax badan oo ku aadan horumarinta afka iyo dhaqanka. Cabdicasiis Riyali, SomaliCable, Muqdisho.